بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الدنيا كلها لواد براحة صار برلمان كفدرال الصومالية. إحنا سياحية حلك الدنيا براحة صار وحان ربعنا لو ذاقو وأنا عديو dhacdo fool xun oo aan isleeyahay sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta sare ee xilalka qaranka u haya midna kuma habboon maanta ay 19 bishii lixaad saacadu markay ahayd 10kii subaxnimo ayaa aniga iyo gudoomiyahayga golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo aan sagootinayay safarna ugu socday dalka Kenya inaanu tagnay barta controlka ee Madiina Gate halkaas oo ay nagu qabsatay arrin run ahaantii sida hordhacaygu uu ahaaba aan fiicnayn maamuuska sharafka iyo xasaanadda mas'uuliyiinta dalka Soomaaliyeed aan ku fiicnayn askartii meesha joogtay waxay diiday gebi ahaanba ayagoo aqoon u leh isu sheegnay inaan nahay mas'uuliyiintii golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya aan u soconno airportka inaan galno gebi ahaanba waa ay diideen taasi waxay keentay inaan taagnay muddo 50 daqiiqo Amisom waxay ku joogtaa ogolaansho dowladda federaalka ee Soomaaliya shaqada ay u idman tahayna ma ahan midda maanta ay ku kaceen waa xadgudub waa ka xunnahay mana aha wax loo dulqaadan karo oo uu aqbali karo guddoonka xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha aqalka sare arrinkaasi waxaan ka dalbanaynaa oo si adag uga dalbanaynaa inay jawaab cad ka bixiyaan sababta ay ku dhacday cidda amartay inayna gelin madaxda qaranka ma aha guddoonka kaliya waxaa aniga iyo guddoomiyahayga qabsaday cid kasta oo mas-uul qaran ah waa ay qabsan kartaa waxaan u qoray anoo ah ku-sumihii guddoonka warqad sharci ah maadaama aan dowlad nahay institution dhisan nahay ayagana ay yihiin dad sharci ku jooga warqad official ah oo aan kaga dalbanayno dhacdadaas maanta dhacday ee hor istaaga dadkii aanu mas-uulka ka ahayn iyo aanu matalaynay iyo shaqadii aanu soconnay loo diiday inaanu galno airportka taasoo la yidhi ma haysano wax maandayda oo aad ku gashaan airportka arrintaas waxaan ku celinayaa oo si adag u leeyahay Amisom waxaan ka dalbaynaa wada shaqayn fiican iyo wanaag iyo maxaa la yidhaahaa hawsha ay dalka u hayaan waa wax weyn laakiin xadgudub shaqadooda ka baxsan looguma dulqaadanayo lagamana yeelayo arrimaha aan isleeyahay waxay u baahan tahay in la caddeeyo in mas-uuliyiintii qaranka la kala qaado oo la yidhaaho koox baa loo ogoliyay hebel iyo hebel iyo hebel iyo mas-uul hebel baana la yidhi soo daaya ma raba inaan halkan ka caddeeyo shakhsiyaadka la yidhi 3 nin keliya ayaa la yidhi staafkooda iyo xogayntooda waa la geli karaa in mas-uuliyiintii qaranka dalka ugu sarreysa la kala qaado waxaan u arkaa wax fool
oo aan shaqadoodii ahayn. waxaan ku celinayaa oo aan si adag ugu celinayaa arrintaani waxay meel ka dhac ku tahay dalka iyo qarannimada iyo mas-uuliyadda iyo xasaanadda gaar ahaan baarlamaanka. warqadda officialka ah ee aan u qoray Amisom waxaan ka sugaynaa waan ka dalbaynaa inay jawaab waafi ah ka keenaan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi rahmaani rahiim. Cumar Maxamed Soomaali 26 bishii Maarch sanadkan gudoomiyaha aqalka sare wuxuu golaha hortooda ka sheegay in warqadda ay u geeyeen ciidamada Amisom ay ah in ay la wareegaan amniga xarunta. misleedahay waxay tani keeni kartaa caqabadii ahayd in ciidamada Amisom xaruntan maadaama ay diideen maanta gudoomiyaha inuu gudaha u galo. iskuma xirna mandate-ka ay haystaan Amisom oo ay shaqadoodu tahay waxaa weeye ilaalinta xarumaha mas-uuliyiinta qaranka sida baarlamaanka, goobaha muhiimka ah. waxaan rajaynaynaa iskuma xirna kiis dhacay oo sidiisa u taagan oo aan rajaynayno in la saxo iyo shaqadii ayaga loo idmaday inay tani u noqonayso caqabad marna ma rajaynayno. cidda wax kala saaraysa waxaad sheegtay in 3 mas-uul oo keliya airportka cidda wax kala saaraysa ma Amisom mise waa amar madaxda qaranka. annagu ayagaan ka rabnaa ciddii amartay tiri 3 qof ama 3 mas-uul ayaa naloo amray. haddii madaxda qaranka ay warqad meesha geeyeen ayagaa laga rabaa inay keenaan. hadday jeebkooda tahayna ayagaa laga rabaa. marka ma ogaan karno ilaa la helo jawaab waafi ah. gudoomiye maxaa ugu dambeyn go-aan qaadanaysaa warqadii aad maanta qortay haddii Amisom kasoo jawaabi weyso waxaa laga yaabaa in caqabadaha intaas soo laalaabtaan. waxaa weeye annagu institution baan nahay. jawaab aan la gaarin iyo waxbaa la diidi doonaa kama hadli karno.